hay-adda Amnesty International ee xuquuqda bani'aadamka u dooda ayaa xukuumadda jamhuuriyadda iskeed madax bannaanida ugu dhawaaqday ee Somaliland ka dalbatay in si degdeg ah oo bilaa shuruuda loo sii daayo wariye Cabdimaalik Muuse Coldoon. sanad ayaa ka soo wareegtay xabsi 3 sano iyo badh ah oo lagu xukumay wariyahan oo hadaladiisu ay muran dhaliyeen kadib markii ay maxkamaddu ku heshay dambiyo lagu eedeeyay. Maxamed Xaraare ayaa inoo haya warbixin ku saabsan. sanad ayuu xabsiga ku jiraa. taageerayaashiisu waxa ay ugu yeeraan samafale, wariye iyo magacyo kale oo wanaagsan. waxaase jira qaar kale oo sheega inuu laf dhuun gashay ku noqday jamhuuriyadda iskeed madax bannaanida ugu dhawaaqday ee Somaliland. bishii Abriil ee sanadkii tegay ayaa la xiray Cabdimaalik Muuse Coldoon, waxaana lagu eedeeyay inuu gala dambiye ay ka mid yihiin magacdil qaran, aflagaada madaxweyne iyo inuu dhoobdhoobay warar been abuur ah. bishii Julaay ee sanadkii 2019 ayaa 3 sano iyo bar lagu xukumay kadib markii ay maxkamad dambiyadaasi ku heshay. qareennada dacwadiisa u doodaya ayaa sheegay in xukunka uu lahaa daldaloolo sharci isla markaana uu ahaa mid siyaasadaysan. shaki kuma jiro inuu ceebo badan lahaayeen xukunadii kala dambeeyay ku dhacay Suxufi Coldoon. qaabka loo soo xiray markii ugu horeysay gaar ahaan 17 Abriil 2019 maanta oo kale waxa uu qaab baalmarsan sharciga Somaliland gaar ahaan dastuurka qodobkiisa 25aad iyo xeerka habka ciqaabta labadaba sababta maxkamadda may amrin xarigiisa. arinta labaad ee loo xiray oo ahaa aragtidiisa oo ku cabiri jiray Facebook qaab nabad ah dastuurka Somaliland uma yaqaan dambi iyo xeerarka caalamiga ah labadaba in qof suxufi ah loo xiro waxa baahiya ama waxyaabaha qoro. waxaan qabaa eedihii lagu oogay xafiiska dawladda Somaliland ku soo ogtay Cabdimaalik Coldoon inay ahaayeen eedo siyaasi ah isla markaana uu ka dhashay xukun siyaasi ah. taasina waa takaliftay inuu Cabdimaalik niyad jabay inuu abiil u qaato maxkamadda sare ee Somaliland. xukuumadda Somaliland ayaa beenisay hadalka Amnesty International isla markaana sheegtay in wariye Coldoon sifa sharci ah lagu xiray iminkana lagu hayo. Amnesty International waxaan u malaynayaa waa hay'adan la socon sharciyada dalka Somaliland leeyahay iyo constitutionka iyo xeerka constitutionka qaranka ee uu dalku leeyahay. runtii dalka yagu qofka la iskama xiro ee marka ugu horeysa warqad maxkamadeed baa lagu xiraa, biliiska u taga, saasaa lagu soo xiraa, dabadeedna dembiga lagu oogaa, dabadeedna qofku wuxuu qabsadaa qareen u dooda. dawladduna qareen bay qabsataa. maxkamadaha la mariyaana waa 1, 2, 3 ilaa maxkamadda ugu sarreysa oo awoodda afraada. Coldoon ninka la yiraahdo inta jaranjaro ee aan soo sheegayba waa la mariyay. madaxweyne Muuse Biixi ayaa horaantii bishan cafis u fidiyay 574 maxbuus si looga gaashaanto faafka fayraska corona. wariyaal ay shaqo wadaag ahaayeen ayaa ku doodayay inaanu gelin dambi ka weyn inuu cabiray fikirkiisa, sidaa daraaddeedna Somaliland ka dalbaday in la sii daayo. waxaa lagu xukumay 3 sano iyo bar. runtii uma qalmin xariga inta la eg iyo waxa uu sameeyay macnaha fikirkiisa inuu cabiray iyo in xariga inta la eg lagu xukumo. dhawaanna madaxweyne Muuse Biixi waxa uu cafis u fidiyay macaabiis 570 iyo shan yani taan malaynayaa. runtii waxaan rajaynaynaa inuu ku jiro Coldoon. aad bayna noo farxad gelin lahayd. anigu waxaan ka mid ahay suxufiyiinta sida aadka ugu oroleeya in Coldoon la ururkaygu aad buu ugu dadaalaa. suxufiyiin badan oo reer Somaliland oo iyaguna aad ugu dadaalaya jira. runtii waxaan rajaynaynay in Coldoon madaxweynuhu cafis u fidin doono. haddana madaxweyne Muuse Biixi weli fursad kale horta alla oo ah inuu bisha Ramadaan ciideeda uga faa'iideysto inuu cafis u fidiyo. waan rajaynaynaa midda haddii alla idmo. hay-adda Amnesty International ayaa Somaliland ku eedeysay inay isticmaasho xeer ciqaabeed gaboobay oo soo baxay sanadkii 1962 kaas oo faafreeb ba'an, xarig iyo cagajuglayn joogto ah ku haya warbaahinta iyo suxufiyiinta. Maxamed Xaraare, BBC. haddaba waxaa khadka Skype-ka toos ugu jira magaalada Nairobi Cabdilaahi Xasan oo ah cilmi baadhe ka howlgala hay-adda xuquuqda bani'aadamka ee Amnesty International. soo dhawow. haddii aynu hore u gallo sidaad sheegteen waxaad tidhaahdeen waa in degdeg iyo shuruud la lagu sii daayo Coldoon. laakiin se Coldoon waad ogtahay maxkamad baa dambi ku hesho la istaajiyay. hay-adda Amnesty haddaad tihiin ma waxaad leedihiin ninkaasi dambi muu gelin? ay sanad samaysay in wariye Cabdimaalik Muuse Coldoon
sababta loo xiray ay tahay keliya in ra'yigiisa uu ku cabiriyo bartiisa facebooka oo halkaasi uu ku dhaleeceeyey ama uu wax kaga sheegay qaabka uu dalka u maamulayo madaxweyne muuse biixi cabdi arrinka asaga ee dembi ma ahan wariyaha xaq ayuu u leeyahay in uu siduu rabo ra'yigiisa u cabiro xilli walba iyo qaab walba uu rabo baaritaanadii aan samaynay waxaan ku ogaanay in maxkamadii in si sharci darro marka hore loo qabtay oo waraaq waaran aan loo soo qaadanin kadibna la maxkamadeeyey ayadoo la isticmaalayo qodobada ka tirsan xeerka ciqaabta Soomaaliyeed oo ayna ahayn in wariyaasha lagula dhaqmo sida shuruucda caalamiga ay sheegayaan sidaa daraaddeed ayay Amnesty International waxay aaminsan tahay in ay gardarro ahayd marka horeba in la xiro Cabdimaalik haddana uu xaqdarro ku xiran yahay xukunka ku dhacayna uu ahaa xukun xaqdarro oo ay qasab tahay in dowladda Somaliland si shuruud la'aan ay u sii deyso gaar ahaan xilligan aan ku jirno oo cabsida laga qabo faafidda cudurka viruska coronavirus ay halis ay tahay Cabdimaalik waxaan aad u dalbanaynaa in dowladda Somaliland ay sii deyso si shuruud la'aan waa tahay Cabdilaahi laakiinse markaad eegto kiiska Cabdilaahi lagu haysto Coldoon waad ogtahay iskuulo wax ka sheegaa la yiri waad ogtahay meelo kale wax ka sheegaa la yiri shakhsiyaad wax ka sheegay marka Amnesty dadka kale hadii lagu xadgudbo dadkaasi Muuse Biixi wax ka sheego kaliya ma dawladdiisa laakiin dadka kale shacabka ama dadka kale hawshooda iska wata nolol maalmeedkooda Amnesty ma ogoshahay in wax laga sheego xuquuqdooda lagu xadgudbo Amnesty International waxay ogoshahay in wariyaha ama shakhsi muwaadin walba oo dal walba ku nool si asluubaysan uu ra'yigiisa u cabiro baraha Facebook baraha bulshada ay meel walba arrinka Cabdimaalik ee ku saabsan in dad kale oo rayd ay wax ka sheegay haddii ay jirto waxaa laga rabaa dadka ayaga laftirkooda dacwadaan maxkamad madani oo rayd tagaan oo halka Cabdimaalik dacwadii ay u qabaan oo soo gudbiyaan markaas wixii maxkamadda ka helaan bikaleeyeen laakiin arrintan in xeer ilaalinta Somaliland ay soo dhodobto maaragtay in wax ka sheegay ama warar been uu baahiyay waxa lagu daba dhuumanayay oo kaliya in ma jirto Cabdilaahi aan ka dhaxlo waxa jirta waad ogtahay maxkamadda xeer ilaalinta lama oran karo waxba soo dhoobdhoobeen dadka badan Somaliland kuna qof baa maxkamadda la istaajiya la xiraa marka waxa weeye Coldoon haddii lagu haysto kiis ay dad kale iyaguna soo gudbisteen in aad tiraahdo waxba kama jiraan wax la soo dhoobdhoobay maxaq ba my case-ka Cabdimaalik loo haysto oo anaga aan baaritaan ku sameynay oo anaga aan kaga qayb galnay maxkamadda laftirkeeda aan tagnay markii dacwada la qaaday aan goobjoog ka ahayn waxaan xaqiijinay in qof shacab oo Cabdimaalik dacweynayo una maxkamadda joogin aanan keenin oo kaliya ay ahayd in xeer ilaalinta Somaliland ay markaasi ayaga dacwad ku soo oogeen oo danta Cabdilaahi inay ku caburiyaan oo xabsi ay ku geeyaan Cabdimaalik Muuse Coldoon oo ay tahay qasab inay sii dayaan si shuruud la'aan aad iyo aad baad u mahadsan tahay Cabdilaahi Xasan oo Nairobi kaga soo fiiray hay'adda Amnesty International ka tirsan